jirto oo 10 jir 8 jir oo daroogada isticmaalayso haddii waddankan laga joojiyo waxaas leenahay horumar gaari leedeen ardayda wax bar lahayd maandooriyaha dadka ka bixi lahaa noloshana macnaha kuma koobna in macnaha jaad kaliya laga helo ganacsi kala iska abuurmi lahaa dadka ganacsiyo badan iska abuuray waddankan waa barwaaqo qudaara ka baxdo wax walba baxo ana waxa leeyahay arqalad badan buu leeyahay dawladda inay joojisaan macnaha anaga kula talineen shacab ahaanteena waxa waay waa dhibaato badan oo ku haya Soomaaliya jaadka waddanka waxa waay aragti ahaan waa ka xumaa in la fasaxo waxa jeclaan lahaa in la joojiyo waxa ugu xumaa ilaa waddanka waa dareemi kartaa hadda macnaha jaadka isbuuc mar la joojiyay 20 bari waxa xasuustaa waddanka oo aad macnaha oo qurux kaliya u naqday dadkii balwadi ka baxday dadka ganacsiga ku fiicnaadeen hilibkii qudaarta la isku cunaayay raggii dumarka ee isfahmeen hooyooyinkii ilmii aabood waxa laga yaabaa inuu arkinba Soomaa saaki inuu caad qaad ku maqan yahay maalin waqtina uu jiifo waqtina uu maqan yahay laakiin gurigiisa waqti ku qaadanaa qofka uu shaqo tagaya uu soo hooyanaya caruurtiisa oo jimcaha la qaadanaya waqti hooyadii asiga way isfahmi karaan waa aragti waddanka maalin boolis furaya ilmii waxa waaye naag walba garoob waaye ninka wuxuu dhalay 3 cunug 4 cunug oo kala hooye haya naagtu waxa kula 5 nin ay soo furtay oo kala aabe marka dhibaatada waxa keenayaan waa qaadka ilaa ninka qaado gadala cunuga caaniis ma awoodo Soomaa